kulanti waxaan ugu wanaagsan daawadayaal idil ahaantiin meel walba dunida ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka guud ahaan dhacdooyinka ugu saameynta badan. qodobada aan idinku hayo daawadayaal waxaa ka mid noqonaya ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Lubnaan oo eedeyn culus u jeediyay Hizbullah. sidoo kale qodobada aan idinku hayo waxaa ka mid noqonaya heshiiska Israa'iil iyo Hamas dhaxmaraya oo qaarkood loo soo gudbiyay warbaahinta. haddaba qodobadaasi ay ku jiraan ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa. sidoo kale barnaamijka waxaan idinku soo gudbin doonaa hadduu Rabbi idmo Greenland oo Mareykanka markaasi doonayay in uu qabsado oo haatan ogolaatay in uu la shaqeeyo Donald Trump. haddaba waxyaabaha ay ka wada shaqeynayaan sida Donald Trump uu rabo miyay ogolaan doonaan. qodobadaasi qodobo kale oo aad xasaasi u ah ayaan daawadayaal halkan idinku hayaa. haddii aad ku cusub tahay subscribe noo saar, muuqaaladana si share garee. waad ku mahadsantahay daawashada iyo la socoshada wararkeena. haddii aynu ku bilaawno markaasi ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi Lubnaan ayaa waxa uu ka hadlay markaasi dagaalka Israa'iil iyo Lubnaan ka dhaxdhacay iyo sidoo kale heshiiskii ay wada gaareen ururka halkaasi ka dagaalama markaasi aadka isku hayaan Israa'iil. sidoo kale waxyaabaha markaasi uu ka hadlay waxaa ka mid ah sida uu markaasi ku horumarin doono dalkaasi Lubnaan iyo waxyaabaha uu diiradda saari doono. ra'iisul wasaaraha magacaaban ee Lubnaan ninkan lagu magacaabo Nawaf Salam ayaa sheegay markaasi inuu gacan u fidinayo kooxaha dalkaasi ka dagaalamaya iyo sidoo kale dadka doonayaba in horumar ay gaarto Lubnaan. waxa uu tilmaamay in markaasi Hizbullah ay doonayso in markaasi mucaarad ay ahaato, sidoo kalena ay iyagu marba dhinac u janjaraan ayuu yiri, sidoo kalena aysan ku qanacsaneyn magacaabistiisa. Salam ayaa markaasi ay magacaabeen sharci dejiyaasha dalkaasi ee Lubnaan. waxa uu tilmaamay in waxyaabaha ugu muhiimsan oo wax ka qaban doono ay tahay sida dib loogu dhisi lahaa Lubnaan, amnigana uga shaqeyn lahaa. sidoo kale waxa uu ka hadlay qaraxii ka dhacay markaasi dekada oo dad badani ay ku dhinteen. waxa uu tilmaamay in dadkaasi ay cadaalad heli doonaan. waxa uu sidoo kale tilmaamay in markaasi Lubnaan ay haatan buug cusub u furmayo, buugaasina uu noqonayo mid bulshada oo dhan ay u wada siman tahay. Hizbullah ayaa markaasi waxa ay taageero ka heli jirtay Iran iyo sidoo kale saaxiibkooda markaasi dhinaca Suuriya oo ay la wareegeen kooxaha mucaarada kadib markii Bashar al-Assad meesha laga saaray. haddaba waxyaabaha ay ka soo kordho iyagana halkan ayaynu idinku soo gudbin doonaa. dhinaca iyo Gaza iyo Israa'iil dagaalkooda ayaa waxa la leeyahay markaana waxa uu maraya gabagabo heshiiskooda, iyagoo la filayo in dhawaan ay markaasi wada saxiixaan heshiis cusub kaasi oo maxaabiista ay haystaan ururka Hamas sidii lagu sii deyn lahaa iyo dagaalka halkaasi ka socda sida loo joojin lahaa. qorshe ku qoran loo gudbiyay labada dhinac iyagoo markaasi heshiiska finalka ama ugu dambeeyaba la gaari doono toddobaadyada nagu soo aadan sida Dooxa ay sheegtay. Qatar ayaa arintan dhexdhexaadinaysay waxa ayna markaasi labada dhinacba ku kaliftay in ay heshiyaan si markaasi maxaabiistana loo daayo, sidoo kalena meesha looga saaro dagaalada dalkaasi Falastiin markaasi ragaadiyay. sidoo kale wararka aynu ka helayno waxa ay tilmaamayaan in markaasi Falastiin haatan dhimashadu ay kor u dhaafayso 46,000 oo qofood, 645 qof kuwaasi oo markaasi ku dhintay dagaaladii ugu dambeeyay markaasi ka dhaca magaalada Gaza. wasaaradda caafimaadka ayaa waxa ay tilmaamtay markaasi weerarkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Gaza inay ku dhinteen 61 qofood oo markaasi weerar lagu qaaday markaasi oo dhinaca diyaaradaha ay sababeen dhimashadaasi. waxayna tilmaameen in markaasi Israa'iil dagaalka ay ku hayso Falastiiniyiintu uu yahay mid khatar badan ku haya bulshada, iyadoo sidoo kalena la isku dayayo in la xaliyo dagaalka labada dhinac. haddii aynu aadno dhinaca iyo Los Angeles, wararka aynu ka helayno waxa ay tilmaamayaan in Los Angeles ay mar kale ku habsanayso markaasi musiibo oo markaasi dhinaca alla ka timaaday.
iyadoo markaasi ay la ogyahay in dabka halkaasi ka kacay uu saameyn xoogan ku yeeshay haddana waxaa la leeyahay waxaa kasii dartayba in la la-yahay biyo lagu damiyo waxaana la saadaalinayaa maalmaha soo socdo in markaasi dabeelo xoogan oo kuwii hadda markaasi dabka sii huriyay ka badan ay imaanayaan. sidoo kale waxaa dhacdooyinka Los Angeles laga soo tabinaya kamid ah in markaasi tuugo ay ka dilaacdayba magaaladaasi iyadoo dadka haatan loo tababarayo lana siinayo hub ay markaasi isku difaacaan hantidoodana ku ilaashadaan. 34 qofood ayaa loo xiray arintaasi oo markaasi lagu eedeeyay in markaa dhac iyo sidoo kale bob ay ka wadeen Los Angeles ayaa markaasi wajahaysa dab xoogan oo markaasi dhinaca kaymaha ka yimid. sidoo kalena waxaaba la leeyahay magaalooyinka uu dabka qabsado guryaha ay dadka hantiilayaasha ah gaar ahaan yahuuda iyo sidoo kale kuwa taageera in badan oo kamid ah dabkaasi uu saameyn ku yeeshay halka dugsiyo quraan oo halkaasi ku yaalay ay badbaadeen sida muuqaalada qaarkood laga arki karo. oo waxaa la leeyahay meelaha diintu ay ku badneed waa uu ku yaraa dabka. sidoo kale meelaha ay degan yihiin dadka Afrikaanka ah ayaa sidoo kale la leeyahay guryahooda waxa ay ahaayeen kuwa dab aan sidaasi saameyn ugu yeelanin. xitaa waxa wararka qaarkood ay tibinayaan in guryaha qaarkood flashka oo kombiyuutarada la geliyo ama loo isticmaalaba laga heli karo isagoo aan dab taabanin laakiin inta kale ay gubteen. waana waxyaabaha mucjizada ah ee laga soo warinayo markaasi Los Angeles. sidoo kale Los Angeles ayaa waxa ka taagan arin muhiim kala ah oo ah in siyaasiyiinta dalkaasi ugu horeeyo madaxweynaha dalkaasi Donald Trump uu ku eedeynayo gudoomiyaha amaba ninka maamulka ama maayarka ka ah California kaasoo ku tilmaamay in markaasi aysan u diyaar garoobin dhacdooyinka noocan oo kale halka California ninka markaasi maayarka ka ah isaga laftigiisu uu tilmaamayo in ay Trump uusan waxba ka qabanin arimaha ugu muhiimsan. Suuriya hadii aynu soo aadno iyagana wararka aynu ka helayno waxa ay tilmaamayaan in markaasi wasiirka arimaha dibadda dalkaasi oo haatan qorsheenayo in uu imaado dalka Turkiga. wasiirka markaasi maalmaha kooban jooga ee dalkaasi Suuriya ayaa waxa la leeyahay maalinta Arbacada ah waxa uu booqanayaa markaasi dalka Turkiga. safarkiisii ugu horeeyay waxa uu tilmaamay in markaasi 14 sano kadib in ay booqdaan Turkiga ay tahay waxyaabaha ugu muhiimsan maadaama Turkiga iyo Suuriya ay xuduud wadaagaan sidoo kalena ay taageeraan kooxda halkaasi ka dagaalamaysa in muddo ah oo haatan markaasi talada la wareegay kuwaas oo lagu magacaabo Hayat Tahrir al-Sham. waxaana la leeyahay markaasi in Suuriya ay haatan doonayso in markaasi xiriirka diblomaasiyadeed ee Turkiga kala dhaxeeyo ay wanaajiso iyadoo sidoo kalena Turkiga la ogyahay in kooxda Kurdiyiinta ee ka dagaalanta waqooyiga dalkaasi dagaal adag uu kula jiro iyadoo sidoo kale uu duqeeyay goobo dhowr ah oo markaasi ku yaala dalka Suuriya. waxaana uu ahaa mid markaasi taageeraya in meesha laga saaro ninka dalkaasi in muddo ah soo maamulayay ee ahaa madaxweynihii dalkaasi Bashar al-Assad. qodobadaas ayaa ahaa kuwa ugu muhiimsan caalamka daawadayaal haatan intaas ayaana ku soo afmeeraya. haddii aad markaasi nala soo gaartay qaybta ugu dambeysay wararkeena waa ku mahadsantahay daawashada iyo la socoshada.